waxaan u raynaa naftayna iyo maalkayna intay Soomaali ku jiraan ma khayri doon ciidamada xaquudirka Maxaasiciid Qaahira iyo deegaanada hoos yimaad waa astaan muujinaysa in shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cadawga diinta iyo dalka waxay isu garab taagan yihiin cadawga Ilaahay nagu salladay inay iska cayrshaan deegaanka Maxaasiciid Qaahira iyo deegaanada hoos yimaad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka hana qaaday ciidamo xaquudir ah oo naf iyo maalba u huray difaaca diinta dadkooda iyo dalkooda kuwaani waa wiilal Soomaaliyeed oo aan ka harin safka hore ee dagaalka ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab iyagoo si geesnimo u qaaday mas'uuliyad aan saalaneyn oo lagu difaacayo shacabka muslimka ah ee lagu kumaadayo magaca diinta ciidamadan xaquudirka ah waa geesiyaal si iskooda soo abaabulay kuwaasoo ka dhiidhiyay xasuuqa iyo dulmiga ay khawaarijtu ku hayaan shacabka Soomaaliyeed waxayna ka mid yihiin hormuudka dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada ee khawaarijta asalkii ujeedka ciidamadan waxay ka soo farcameen shacabka deegaanka gaar ahaan beelaha dega Maxaasiciid Qaahira iyo deegaanada hoos yimaad kuwaas oo ka dharagsan dhibaatada ay khawaarijtu ku hayaan dadka iyo dalka wuxuuna ujeedkooda ugu weyn yahay in laga ilaaliyo deegaanka qatarta khawaarijta in la ilaaliyo nabadda sharafka iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed in la garab istaago ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya iyagoona naf iyo maalba u horay difaaca deegaanka waxayna si joogto u fuliyaan howlgalo qorsheysan oo lagu beegsado khawaarijta waxaan dadkan meesha taagan deeqooda ayaga iskale darajay leeyihiin karaamay leeyihiin dawladda Soomaaliya way ku mahadsan tahay garabkeena ka soo istaagtay anankan waxaan ballan ku qaadina inaan ku garaacno intaan nool oona u ogolaan habeen iyo maalin degmo iyo tuulo iyo gobol ka heri ma doono waana baxsan doonaa cid la arkana way dhaaratay hubkoodii la soo baxeen markii dhagartooda iyo culayskooda ay ka joogi waayeen waxaan u raynaa naftayna iyo maalkayna intay Soomaali ku jiraan ma khayri doon wax warkaas ka bedelan kuma jiraan hadaan nahay beesha Cabdulla Galmaax Maxaawisleyda oo isgarbaysatay garabkana iska taagan maalin walbana alle ma taqaanaa sidaan u taagan howlgal korno si balaareeyo hay waxaan u filayaa gacanta koreysa inaan ku darno oo ku gacanta koreysa galno iyukuna gacanta hooseysa galaan sidaanan u taagnahayna maalkayna iyo naftayna haddaan nahay beesha Cabdulla Galmaax nimanka la yiraahdo Maxaawisleyda dadka ajaanibta ee ilaa hadda alla ida gobolada laga keenay ee irid walba la isaga soo aruurshay ma doonayno dalka ninka u dhashay taagan dawlad caadil ah oo haysta oo hubka la garab taagan oo wax walba u baahan yahay oo dhaqdhaqaaqa oo wax walba gurmad isu maragta u baahdo la garab taagan anankuna irid walba ilaa hadda carragudud hanqata carracad hanqata meel walba naqan irid walbaan ku hogaamayna si buuxdaan hadanba kuma gacantu ugu haynaa mas'uuliyadda dawladuna waa ku mahadsan tahay oo na garab taagan waxa waay ma doonayno arqalada badan ay nagu suubiyeen gabdhahaynay qalqal galsheen ardaydii dugsida quraanku 104 dhaxo ahayd ay waxay yireen hal laga soo qabto cunugi gacanta laga hayaa ilmihii 8 jirka ah gacanta laga hayaa habartiya gacanta kale uga dhigtaa soo leeyahay ma deeyay ma sadeeymaysid dadka ajaanibta ah wadamanka kale la isaga soo fura haday wadankayna waxay rabaan inay ku qabsadaan yako ma doonayno diinti indhahay ka ridow hayaan kitaabka ilaahay leen kitaab aan la kala fidayn adigu wuxuu yahay ma sheegi kartaa ugu dambeyn ciidamada xaquudirka ee ka howlgala deegaanka Maxaasiciid Qaahira iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa kamid ah kiisiyaasha naftooda iyo maalkoodaba u horay difaaca dalka diinta iyo dalkaba wahaliyeeyo Soomaaliyeed oo si iskooda soo abaabulay kana jawaabay baaqi shacabka iyo dawladda ay ahaa in la ciribtiro khawaarijta kumaadka ku haya shacabka Soomaaliyeed Saadaam Cabdulla Siyaad warbaahinta qaranka Soomaaliyeed deegaanka Qaahira gobolka Shabeellada Dhexe